hadda waxaa socotaa matalaadii gobolka banaadir iyo arrimihii yararkaa waxaa la yidhi meeshii waagii hore la dhihi jiray waxay dhaqan gelaysaa markii labada aqal baarlamaanka ay saxiixaana la dhihi jiray hadda warqaddii waa laga bedelay waxaa lagu qoray markii golaha shacabka oo saxiixay dhaqan gelaysaa lagu daray mar haddiiba hadda la bedelo wax walba la leeyahay golaha shacabka markay saxiixaan markii horena labada aqal la oran jiray welina doorashadii lagu jiro kowdna la soo baasgareeyey arrintaasi soo khaladaad kama muuqdo fiir horta iishuugeena caawa gobolka banaadir maaha adiguna ajenda aan ka hadlayna caawa gobolka banaadir kama hadlayno laakiin si guud baarlamaanka waxaa ka soo baxay shuruucna way jiraan qaraaraadna way jiraan qaraaraadka ka soo baxa idaariga ah ama khuseeya waxyaabo kala gedisan nuucu raba ahaadee waxaa saxiixa guddoomiyaha baarlamaanka waxa sharci ahna oo qaanuun ah ama xeer ahna waxaa saxiixa kama dambaystiisa iskale madaxweynaha hadday golahan inta ka baxdo toos madaxweynaha u aadayso iyo hadday aqalka soo maraysa labadaba marka ugu dambaysa waa in madaxweynaha kusoo dhamaataa marka qaraar iyo xeera kala jira weligiisna dee qaraarka uu saxiixayo guddoomiyaha baarlamaanka cabdullaahi maxamed shirwa gobolka hadda xagga doorashada oo baan ka aada maahan ishuu aan soo gelinayo maahayn markaad aragto kolleyba ayantan dhaqdhaqaaqeenu horta waa badan yahayo international community-ga ama beesha caalamka waa la kulantaan labadii aqal waad la kulanteen meelo badan baad maalmahan la tashiyo badan ka samaynaysay khaladaadka idiin muuqda ee dhanka doorashada muxuu yahay horta marka ugu horeyda khaladka weyn oo muuqda oo aan u malaynayo baarlamanka iyo xukuumadduba aysan ka fayoobaanaynin waxa waaye lasoo daahidda lala soo daahay oo waktigan la keenay in la isku sii qabqabsadaana waa iyaduna kasii daranta waa waxaan lahaa waali waaye mogta haddaad qaldan tahay ood is og tahay oo inaad adigu shalay soo qaldantay waxa waaye inaad inta maanta aad si asluubaysan aada uga baxdo mogta marka waalidii unbay calaamad u tahay shalana waa la waalaayo waxbaa lagu waalaay shaqo badan laguma maqnayn waayo shaqada waa siday u kala mudan tahay waa in loo sameeyo dowladdan macal baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda iyo madaxweynaheeda waxay ahayd inay doorasho diyaariyaan waajibkaas ayay lahayd hadda inay waktigan isku qaqabsanayaani markhaati cad waxay u tahay either in la waalan yahay ama oo la qarinayo dee muxuu ahaa mataqaanaa wixii hawshii la fulin waayey ay markhaati u tahay ama dee doorashada waalideedii iyada qudheeda in lagu jiro adigu waali ka soo qaad arrinta ah yacni uu xildhibaanku ka dhawaajiyey oo ah yacni baarlamaanka ama golaha shacabku xeer isaga maamul ah oo samaysan kara laakiin aniga sharciyaqaan maahi caqliga aan leeyahay wuxuu tusinayaa qodob dastuuri ah qaraarka ma dhigi karaan xeer oo baarlamaan sina loogama dhigi karo waayo waaba dastuuri haddii la rabo marka qodobkaasi qaraarka in laga dhigo waxa weeyaan waa in qodobka la bedelaa oo muxuu ah la yidhaahdaa qaraar baa lagu soo saaraya laakiin qodob oo dastuuri ah yacni guddoomiye baarlamaan ama muxuu ahay aqalka u doona ha ahaadee ayaa saxiixaya aniga waxay iigu tirsan tahay waalida nooc meel ka mid ah waxa meesha yaalla waxa waaye waaqiciga hadda jira waxa waaye doorashaan u soconnaa waktiguna aad buu u yaryahay waa inaynu marka karti u yeelannaa inaynu la nimaadno hanaan aynu khilaafaadka jira ku furdaamin karno annagoo u danaynayna malaayiinta soomaaliyeed ee qadaya ee aan waxbarasho haysan ee aan caafimaad haysan ee aan amni haysan ee waxay cunaan aan haysan iyadoo kuwaas loo danaynayo oo aan loo danaynaynin kursiga aan waxaa qof helayo aan loo danaynaynin kuwa iyadoo loo danaynayo waxa weeyaan aan xalka wada jir wada aadno hadda waxaa muuqata oo waalidani ay bannaanka soo dhigtay hay-adihii dowladdu midina inaysan xal haynin haddii ay haydana inta kale aysan ka dhegaysanaynin inta kale aysan ka dhegaysanaynin marka annaga waxaan u aragnaa bulsho rayid ahaan danta guud oo ah si degan oo xasiloon ciddii calafkeedu u galay inay timaado muxuu ahay doorasho ku timaado ama xildhibaan ha ahaato ama muxuu ahay guddoon baarlamaan ha ahaato ama madaxweyne ha ahaato annagu waddadayadu waa taas ah waxaan hadda ka sokeeyo laysku daalinayaa waxa waaye waxaa dalka loo horjeedaya halis waddankan lama heshiisiin
oo waddan la heshiisiiyey oo muxuu ah dadkooda isu laab xaaran yihiin oo muxuu ah mataqaanaa cuqdadihii iyo rafaadkii lasoo maray ka biskooday ma aha waa waddan hubaysan xuduudihiisuna u furan yihiin in hubkii la doono lasoo geliyo oo aysan ilaashanayn haddii marka siyaasiyiintoodu ay isqabsadaan oo ay xal keeni waayaan ama mujtamac oo dhami uu xal keeni waayo macal siyaasiyiinta waxaanu halis u nahay dagaal sokeeye oo aan cidina xalkiisa aysan maanta ahaynin marka khatartaas inay siyaasiyiintu fiiriyaan oo ay isaga soo dhawaadaan meelaha ay joogaan oo xal raadiyaan xal waa la heli karaa waayahay mararka qaarkood markay noocaan oo kale ay timaado waxaa jiray door ay international communitygu qaadan jireen adinkuna waa la kulanteen oo James Swan iyo kullaba dadkii kale la kulmi kartaan waad la kulanteen ayagu sidee ba u arkaa iyagu waxa weeyaan way jahwareersan yihiin waayo sidaad haddaayati sheegay dad ku bilowday waraaqihii baa laga badshay dacwadii baa laga badshay warkii lagu dirirsanaa baa laga badiyey waaqicigana dexradaas ay uga jiraan oo sidii aad dadka aan Soomaaliga caadiga ah u akhrinayaan uma akhrinayaan marka anigu waxaan qabaa iyagu marka hadda waxay samayn karaan waxaan la yiraahdo culaysaarka ayay samayn karaan laakiin cidda la rabo mushkiladan abuurayda inay xalidana laga rabo waa Soomaalida waa kow dadka siyaasiyiinta ee mas'uuliyiinta ee dhaartay xil muxuu ahaa soo doontay haddana ku fadhiya kuwa ku haysta inay la heshiiyaan waa muhiim hadday la heshiin waayaan dee adduunyadu waddankani waxa weeyaan mudday maal gelinayda inuu dego waxaa laga yaabaa inay ku diriraanna waa suurtagal inay afduubaanna waa suurtagal laakiin afduubkaas ma loo baahna waxaan u baahanaa annaga Soomaalida inaan kala shirshirno in la shiraa horta way fiican tahay oo guddoomiyaasha muxuu ah mataqaanaa maamulada madaxdoodu inay intay isu yimaadaan soo showraan oo iyagoo raba in la shiro oo la heshiiyo aad bay u fiican tahay waa soo dhaweynay mudan tahay laakiin haddii la kala shirshiro oo qoloba meel ku shirto oo maaragtay waqtigana saas lagu dilo waxaan u sii dhawaanaynaa halis aan cidna waxba ka qaban karin hadda shantii bisha waxaa lagu waday kadib markii maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay teleefon ku wada hadleen waxaa la isku raacay oo madaxweynuhu iclaamiyay shantii bisha shirna ma dhicin warqad kaloo soo baxday oo oranaysa shirkii dibaa loo dhigay ama saasuu noqdana ma hayno waxaa soo baxday in dhuusamareeb ay maamul goboleedyadu inta shireen ay isugu tegayaan shirkaasi muxuu ka bedeli karaa baarlamaankiina waa ka hawshiisa iska wata muxuu ka bedeli karaa shirkani arrimahan cakiran ee dhinaca doorashada waxaan rabaa intaan horta qodobkaas tigelin hal qodob oo ustaad Sharwacan hadda uu ku dhawaajiyay siyaasiyiinta kaliya aan moodayay laakiin de bulshada reedka ahna inay dhinac ka soo gashay baa muuqata cabsi gelinta iyo waddankan marar badan xilliga uu maraaxisha uu soo maray marka gadaal laga soo akhriyo laga soo bilaabo ugu yaraan xilligii carta oo ay dowladnimadii dib u soo laabatay mustawayaad kala gedisan iyo maraaxil kala gedisan ay soo maraysa marba waxba ku soo kordhayay maalin aysan maalintii shalay ahayd ka fiicnayn runtii ma jirin maantay waxaa la dhihi karaa 4 sano gabangaba ah dowladdan hadda joogta ama xukuumadda hadda joogta qasab waxaa ah inay ka fiican tahay maalintii uu madaxweynaha hadda joogaa xilka la wareegay dhinacyo badan marka laga qiimeeyo oo runtii aan hadda cidna inkiri karin oo xagga financiga isbedelka ka jira xagga ciidamada iyo maaragtay habeyntooda iyo isbedelada laga sameeyay dhinacyo badan markii laga qiimeeyo dowladda si guud waxbaa uu soo hagaagay waxbaa fiicnaanay hal xabo marka aniga waxay ila tahay de inaanaan u muujin markasta dadka waa run qofka siyaasiga ah danta leeyahay marbu uu dantiisa hadba meeshuu ka arko inuu marar badan garaaca dhici karta laakiin waxaan aaminsanahay maslaxadda guud iyo danta caamka ah inay ka weyn tahay maslaxadda shakhsigaana ay ka soo dhex bixi karto midda guud oo hagaagta tusaale ahaan siyaasiyiinteena marar badan ayaad waxaad maqlaysaa ayagoo ka hadla in azma la galayo in mashaakil dhacayo in wixii 91kii dhaco kaleetii wax lamid ay dhacayaan ma filaayo shalayna markii madaxdii hore joogeen ma aysan dhicin cabsidaasna ma taagnayn
maantana cabsi dagaal iyo mashaakil ummaddaanu ay ku gashahay ma taagna doorashada aan kuu dhammeeyo doorashada ilaa hadda waxay ka fiican tahay sidii ahaan jirtay yacni guddi doorashaa jira